kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaasha qiimaha badan ku soo dhawaada Wajawa Media halkaad ka helaysaan warar sugan xogo sax ah iyo falanqeyn qiimo badan anigu waxaan ahay Cabdiraxmaan Wajawa waxaan idin soo gudbinayaa maanta qodobadii ugu door corona warkeena caalamka iyo dalka qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dagaalka bariga dhexe jawaabta adag ee Iiraan ay bixisay beegsiga madaxda sare ee Iiraan iyo holaca gobolka ayaan ku falanqeyn doonaa maanta wararkeena waxaad kaloo maqli doontaan dowladda koonfur galbeed oo fasaxday adeega dalku jooga ajaanibta iyo qurbo joogta maalmihii wacnaa oo dhammaaday jabka siyaasadeed ee ku soo foodlay Donald Trump ayaad maqli doontaan war degdega guul loo soo hooyay qaxootiga Minnesota barnaamijka ayaad ku daawan doontaan qodobadaas iyo qodobo kale u diyaar garoow iyagiyo faahfaahsan rabtaa inaad la jaanqaado xawaaraha dunida tiknoolajiyada baraadinaysa qalab tayo leh oo aad isku haleyn karto haddaba ku soo dhawow hadaf technology halkan waxaan kugu diyaarinay laptopsyo tayo leh mobilada ugu casrisan oo ila jiraan agabkooda shaashadaha waaweyn iyo dhammaan qalabka IT-ga aad ugu baahan tahay shaqadaada iyo gurigaagaba haddii aad tahay qof ku jira saaxadda warbaahinta gaar ahaan baraha bulshadu waxaan ku haynaa mikrofoono iyo qalabka studio-da oo dhameystiran agab kasta oo IT-ya wixii qalab aad ugu baahato xafiis ama guri tayo caalami ah adeeg la isku haleyn karo iyo qiimo kugu habboon waa halka aad kaga iibsan karto qalabka electronics hadaf technology xarunteenu waa Baydhabo agaarka Shaneem Shantraala asugin maanta soo booqo hadaf technology hirka tiknoolajiyada mustaqbalka hadafkeenu waa inaan kugu xirno mustaqbalka tiknoolajiyada nagala soo xiriir taleefanada shaashadaha kaaga muuqda waxaan ku bilaabaynaa intaynu wararka Mareykanku aadin xaaladda dagaalka bariga dhexe jawaabta adag ee Iiraan ay bixisay beegsiga madaxda sare ee Iiraan iyo holac ka socda meelo fara badan oo la duqeeyay ayaynu ku bilaabaynaa duulaanka wadajirka ee Mareykanka iyo Israa'iil ku qaadeen Iiraan wuxuu indhuhu u jeediyay Ruushka iyo Shiinaha kuwaasi oo ah xulafada Iiraan xilli ay weli la kulmayaan dhaleecayn howlgalka Mareykanka uu ku fuliyay Venezuela qof kasta oo garanaya jihada Ruushka iyo Shiinaha wuu fahansan yahay inaysan jirin isgarab istaag military oo si dhaqso ah Iiraan ugu heli karto laakiin halka arrin ee cad ayaa haddii Mareykanku uu awoodo inuu isbedel nidaam ku sameeyo Iiraan ama gaarsiiyo marxalad tanaasul daran taasi waa inuu Mareykanku sameeyay dib u qaameyn caalami oo lagu wiiqayo xulafada bariga ilaa hadda Ruushka ayaa noqday cidda soo hadashay kadib markii war-saxaafadeed ay baahisay wasaaradda arrimaha dibadda Ruushka lagu sheegay weerarada hubeysan ee Mareykanka iyo Israa'iil ay ka geysteen gudaha Iiraan inay yihiin kuwo aan sabab cad lahayn wuxuuna Ruushku ku eedeeyay Mareykanka iyo Israa'iil inay tallaabooyinkaasi ay ahaayeen mid kor u qaadaya xiisadda ayna halis gelinayaan ammaanka gobolka iyo kan caalamka wasaaradda difaaca Talyaaniga ayaa dhankeedii xaqiijisay saldhig military oo ku yaala Kuwait ay kaga sugan yihiin ciidan inay waxyeelo ay ka mid tahay burbur gaaray labaha diyaaradaha inay gaarsiiyeen gantaalada Iiraan iyadoo saldhigga la sheegay inay adeegsadaan ciidan ka socda dalal ka tirsan isbahaysiga NATO oo Mareykanku uu hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha Iiraan Abbas ayaa telefoonka kula xiriiray wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Iraq, Kuwait, Bahrain, Imaaraadka iyo Qatar iyadoo la sheegay inuu la yeeshay wadahadalo la xiriira duulaanka ay la kulmayso Iiraan iyo xaaladda uu galay gobolka xilli si aan horey loo arag ay Iiraan u duqeynayso caasimadaha khaliijka ee martigelinaysa saldhigyada Mareykanka sida ay warisay Al Jazeera qaraxyo horle ayaa hadda dhacay Dooxa iyo Abu Dhabi sida ay warisay wakaaladda wararka ee AFP-da wasaaradda arrimaha dibadda Qatar ayaa sheegtay in waddanka uu xaq u leeyahay inuu ka jawaabo kadib weerarkii Iiraan sida uu qabo sharciga caalamiga Qatar waxay sidoo kale cambaaraysay duqeynta lagu bartilmaameedsaday dhulka Qatar ee loo adeegsaday gantaalada balaastikada iyadoo uu aragtay inay tahay xadgudub bareer ah oo ka dhan ah madaxbannaanida dalkeeda weerar toos ah ayaa lagu qaaday amnigeeda iyo xiisad aan la aqbali karin oo khatar ku ah amniga iyo xasiloonida gobolka
8 daqiiqo oo Trump hadlay wuxuu si cad u cambaareeyay inay Iiraan ay wax ka ogaayeen weerar kasta oo kooxaha ay ka fuliyeen dunida dacaladeeda. Wuxuu sheegay in weerarkii lagu beegsaday maraakiibta Mareykanka uu ka mid yahay mid lagu weeraray Badda Cas ilaa iyo Bariga Afrika, howlgallo ka dhan ah oo looga hor yimid danaha Mareykanka. Inay Iiraan ka dambeysay waa eedo waaweyn oo muujinaysa baaxadda howlgalkan 40 sano oo uu sheegay inay Iiraan halis ku ahayd danaha Mareykanka ee gobolka Bariga Dhexe, cadowna ku ahayd saaxiibada USA ee mandaqiyada Khaliijka. Ayuu sheegay in howlgalkan loo qaaday sidii meesha looga saari lahaa. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in ujeedadan howlgallada militari ee Mareykanku ay tahay in la ilaaliyo shacabka Mareykanka, saaxiibadiisa qaaliga ah, iyadoo la baabi'inayo khataraha ka imaanaya nidaamka Iiraan. Trump ayaa sidaasi yiri: hadafkeenu waa inaynu difaacnaa shacabka Mareykanka annagoo burburinayna khataraha ka imaanaya nidaamka Iiraan, ayuu raaciyay. Dhanka kale, dowladda Koonfur Galbeed ayaa amar ku bixisay in dib loo bilaabo bixinta adeegyada dalku jooga si loo horumariyo adeegyada hay'adaha dowladda, loona siiyo ajaanibta ka shaqeeya deegaanada maamulkaasi iyo muwaadiniinta wata baasabooro ajnabi ah. Agaasimaha hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda ee Koonfur Galbeed ayaa lagu amray inuu si degdeg ah u fuliyo adeegaasi. Sidoo kale, dowladda ayaa caddeysay in wixii caqabada ama muran ee ka dhasha arrintan ay mas'uuliyaddiisa qaadi doonto hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda, maadaama ay horey tashi la'aan u joojisay adeegan. Waxaynu fiirinaynaa daawadayaal dhankaas iyo wararka Mareykanka ee naga soo gaaraya. Maalmihii wacnaa oo dhammaaday jabka siyaasadeed ee ku soo foodlay Donald Trump. Gudoomiyaha aqalka Koongareeska Mareykanka Mike Johnson ayaa soo saaray digniin lama filaan ah oo gaaraysa xisbiga Jamhuuriga. Johnson oo loo arko saaxiibka ugu dhow ee Donald Trump ayaa saadaaliyay guuldaro weyn oo xisbigiisii ka soo gaartay doorashada dhexdhexaadka ee dhacaysa November sanadkan. Mike Johnson wuxuu si cad u sheegay in haddii doorkan looga barto tirada xubnaha Koongareeska ay taasi ka dhigan tahay in talada dalku ay gacantoodii ka baxaysa. Gudoomiyuhu wuxuu hoosta ka xariiqay qodobo xasaasi ah: haddii aynu lumino aqlabiyadda, dimuqraadiyiinta waxay si dhib yar xilka ugu xayuubin doontaa Donald Trump, isagoo muujiyay in difaacii ugu dambeeyay Trump uu dumi karo. Jab siyaasadeed iyo gebagebo walaac ka soo yeeray mas'uulkan ugu sarreeya Koongareeska ayaa loo fasirtay inay tahay qirasho cad oo muujinaysa in xisbiga Jamhuuriga uu lumiyay kalsoonidii ku haystay kuraas badan. Dadka indhiindheeya siyaasadda ayaa rumaysan in maalmihii wacnaa ee Donald Trump ay hadda sii gabaabsiiyeen, iyadoo la dareemayo jawi guuldaro oo kusoo wajahan garabka midig ee Mareykanka. War degdega guulo loo soo hooyay qaxootiga Minnesota. War farxad leh oo hadda naga soo gaaray magaalada Minneapolis. Garsoore federaal oo ka tirsan gobolka Minnesota ayaa soo saaray amar degdeg ah oo lagu hakinayo howlgalkii muranka badnaa ee qaxootiga lagu beegsanayay. Howlgalkan oo cabsi weyn ku abuuray kumanaan qaxooti ayaa hadda si sharci ah loo joojiyay kadib markii maxkamaddu aragtay inuu xadgudub ku yahay xuquuqda dadka sharciga ku jooga dalka. Garsooraha ayaa amar ku bixiyay in la joojiyo xarig kasta oo loo geysanayo dadka qaxootiga ee dalka ku jooga sifa sharci ah. Howlgalkan ayaa markii hore lagu beegsanayay dadka haysta oggolaanshaha sharciga, balse aan weli helin kaarka degenaanshaha rasmiga ee green card-ka. Maxkamadda ayaa go'aamisay in dadkaasi aan loo xiri karin si sharci darro ah mar haddii ay haystaan oggolaanshaha dowladeeda. Go'aanka ayaa dhabarjab ku ah hay'adihii waday qorshahan, wuxuuna nafis weyn u yahay boqolaal qoys oo Soomaaliyeed iyo qaxooti kaleba oo ku nool Minnesota, kuwaasi oo ka baqayay in laga soo saaro guryahoodii ama laga fogeeyo eheladoodii. Ugu dambeyn, maxkamaddu waxay amartay in dib loo eego dhammaan dadkii horey loogu xiray howlgalkan. Xafiisyada qareenada u dooda xuquuqda aadanaha ayaa u dabaaldegay go'aankan, iyagoo ku sifeeyay mid ilaalinaya sharafta iyo sharciga dalka Mareykanka. Guud ahaan daawadayaal, waxaan halkan kusoo gabagabeynayaa wararkii aad kala socoteen waa Jaba Media. Tayo kulanto dambe waxay sila akhyaaray. Nabadgelyo.